Shirka Golaha Wasiirada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ay khamiis kasta yeelan jireen ayaa waxaa lagu qabtay Magaalada Kismaayo. Shirkaasi ayaa waxaa hogaaminayay ama gudoominayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya. Waxaana Magaalada Kismaayo shalay gaaray Golaha Wasiirada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo hogaaminayay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre. Shirka waxaa shir gudoominayay Ra'iisul Wasaaraha waxaana sidoo kale ka qayb galay Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya iyo inta badan Golaha Wasiirada. Injineer Cabdiraxmaan Yariiso wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in shirka ka dhacaya Kismaayo inuu yahay shirkii caadiga ahaa ee toddobaadkiiba mar ay isugu imaan jireen Golaha Wasiiradu. Shirka ayaa waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin in wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya uu golaha ka hor akhriyay warbixin ku saabsan adeega internetka ee maqan waxaana uu sheegay in maalmaha nagu soo fool lagu guuleysan doono cilad bixinta oo haatan ay dowladdu wado qorshe dib loogu howlgelinayo adeegii internetka. In golaha ay meel mariyeen sharciga waxbarashada dalka iyo dib u eegis lagu sameeyo xeerka saxaafadda Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa isna golaha ka hor akhriyay warbixin ku saabsan maxaabiista ku xiran dalka dibadiisa isagoo oo wasiirku uu soo jeediyay in la sameeyo guddi arrimahaasi dabagal ku sameeya. Wafdiga Ra'iisul Wasaaraha ayaa booqday inta ay joogeen Magaalada Kismaayo dekeda iyagoona urku galay howlaha halkaasi ka socda. Ammaanka Magaalada Kismaayo ayaa aad loo adkeeyay muddada ay joogaan wafdiga waxaana ciidamo dheeraad ah la dhigay wadooyinka kala duwan ee magaaladaasi.